Part 1 waxay inoo joogtay basashii iyadoo yaaban inay heshay baradho naxariis badan oo ay wadada ku sheekaysanaa ay fool qabatay isbitaalkii la keenay. Kadib maxaa dhacay? Basashii ugu dambeyn way dhashay, waxay foolataba cunug yar oo qurux badan oo basal ayay dhashay. Markii ay dhashay kadib baradhadii garabkeeda ayuu istaagay, lacagihii qarashaadka isbitaalka wax walba ayuu ka bixiyay. Ugu dambeyn waa uu soo waday. wuxuu u ballan qaaday inta noloshooda ka dhiman ayadii cunugeeda inuu ka faara qaadayo. Intay umusha ahayd cuntada asaa u soo diyaarinay oo jikada u galay oo cuntada u keenay oo wax walba siinayay. Markii ay daalan tahay cunugeeda ayuu u haan jiray, ayada naxariis iyo raxmad ayay la oon jirtay iyo farxad. ugu dambeyn basashii iyo baradhadii waa isguursadeen. Aroos qurux badan ayaa loo dhigay. Sidaas ayay basashii nolosheedii u qurux badnaatay. Haddii shalay la xumeeyay maantana la qurux badan ayay ku noolaatay. Halka ayay ku dhamaatay. Follow isoo dhalag